xisbiga muxaafidka ee kulmiya ayaa waxa uu maanta shaaciyey in dib uu dhigay shirweynihii xisbigaasi oo mudaysnaa in la qabto bisha juun ee sanadkan xanuunka coronavirus awgeed. axmed cabdi dheere gudoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay in shirkaasi dib loo dhigay muddo aan cayineen. isagoo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi waxaa noo mudaysnaa bisha juun horaanteeda shirweynihii xisbiga kulmiye ee afraad inaanu qabanno. sidaa la wada socotaan waxaa dhacay xanuun dalka adduunyada oo dhan saameeyey oo aan intan maanta aynu isugu nimi iyo in ka badan toona aan la isugu iman karin. dadka shirkaa ka soo qayb galaya waa 1,000 iyo dheeraad. waxaanu go'aansannay inta uu xanuunkaas aynu la dagaalamayno oo ina dhaafayo shirkii inaanu dib u dhigno. dhammaan xisbiga kulmiye taageerayaashiisa golaha dhexe iyo fulintiisaba waxaanu halkan ka ogeysiinaynaa shirkaas muddo dambe in la sheegi doono wakhtigu dhacayo ilaa intaynu hadda ku jiro xanuunadana aanu shirkii inoo qabsoomaynin. intaasaan idinku wargelinayay oo aan maanta idinku yeedhay. wixii su'aal ay weydiinaysaan ay iga weydiin kartaan oo ay weydiin kartaan. magacayga waa Luqmaan Maxamed Shatiif ka socda. maalmihii ugu dambeeyay waxaan hadalhay hadal ka soo yeedhay gudoomiyaha xisbiga wixii oo dadka qaar leeyihiin beeli Soomaaliland buu kala qaybiyay. beelo kamid ah buu Soomaaliland waxba kuma laha. bal arrinta adigu ka xisbi kulmiyahan sadar. arrinta gudoomiyaha xisbiga uu sheegay shacabka reer Soomaaliland ee jamhuuriyadda Soomaaliland ku nool gudihiisa iyo dabadiisaba halkay ka taagan yihiin ba xisbiga kulmiyana ka taagan yihiin. runtii wax laga xumaadana way ahayd waanu ka xunnahay. waxaanay u taallaa sharci dejinta iyo wasaaradda cadaaladda wixii ay ka gaarayaan go'aanka ay ka gaarayaan kuwaasay u taallaa. anigu intaa u dhaafi maayo Faysal. inaad dib u dhigtaan shirkii waqti ma sheegin marka waqtiga dib u dhigtaan waqti aan cayineen oo aan la sheegin mise waa waqti cayima. waxaa inagu soo socdaa doorashooyin. shirkii maanta waxaa jira nin waliba wuu ogsoon yahay xanuun baa jira. xanuunkaasu maanta inuu berrito inaga dhammaan doono iyo inuu sanad qaadan doono adduunyada oo dhan war kama hayso. marka waxay ku xidhan tahay dalkeennu xaaladiisu siday noqoto dib baana laga soo sheegi doonaa shirkaa ma cayina. marka laga yimaado inaad shirweynaha xisbiga dib ugu dhigtaan xanuunka COVID-19 dunida ka jira waxaa jira warka loo sheegay in khilaaf dhexdiina ka jiro oo warar barnaamijyada xisbiga kulmiye wax khilaafoo dhexdiisa ka jira ma jiraan. waa xisbi gudihiisa laga wada hadlaa, waa la isqabsadaa, waa la doodaa. laakiin xisbigayga qaylo ka soo yeedhay oo waanu ishaysanaa meel ay ka yeedhay ma jirto. gudoomiye waxaad ka warantaa wax jirta gudidan loo xil saaray xanuunka COVID-19 bulshadu waxay leedahay sidii loo baahnaa uma maamulin dhaqaalihii. sidoo kalena isbitaalada waxaa ka jira baahiyo kala duwan oo dhaqaalaha lagu isticmaali lahaa. arrintaa ka xisbi ahaan idinku sidaad u aragtaan dareenka bulshada ka soo noqday? anagu waxaan u aragnaa gudida runtii sida ay u maamuleen inay si wanaagsan u maamuleen. waxaa hadhay dadka sidii wax loogu sheegi lahaa. dhaqaalay ururiyeen, mid ay xukuumaddu ku dartay, mid ganacsatadeennu ku dartay, mid laynagu caawiyey. waxaan filayaa inay idinla wadaagi doonaan gudidu iyada oo shaxaysan. cusbitaalada waddanka ka jira cusbitaal aan caawimo la geyn ma jiro haba yaraatee. caawimooyinka intay doonto ha la ekaadee ama buuhoodle ha noqoto ama laascaanood ha noqoto ama boorame ha noqoto hargeysa iyo gabiiley 13 cusbitaal baan filayaa cusbitaalada waaweyn. ta ku xigtaana waxay noqonaysaa runtiina warbixinta oo dhan waxaa haysa wasaaradda caafimaadka. wasaaradda caafimaadka ayaan waxaan leeyahay shacabkeenu inay dhegaystaan warbixinaha ka soo baxaya. ma hata suuqa in la dhegaysto in loo dheganuglaado. wasaaradda caafimaadku waxay leedahay caawimooyinkayna soo gaadhayna sideeday uga sheekayn doonaan iyadoo shaxaysan. gudida dhakhaatiir bay iyaa ka hoos shaqaysa. dhakhaatiir kuma jirta baan had iyo jeeraale ka maqlaa media. laakiin dhakhaatiir bay iyagu oo professor ah oo dadkii dalkan wuxuu soo bartay gudaha iyo dibadba uga soo bartay ayaa la shaqeeya caafimaadka kala shaqeeya. marka wasaaradda caafimaadka waxaan odhan lahaa inta xanuunkaasu jiro aynu hogaansano.